بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي هبون داوديال هلكن وتلفزيون كعالمي دلسن استوديوها دحية مقالة مقدشو waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka talada dhakhtarka oo haadaha iyo kale aad ka daawataan telefishinka dalsan waa toddobaadle aynu ku eegno xaaladaha guud ee cudurrada iyo kiisaska cudurradaas hadba mowduuca aynu diiradda saareyno toddobaadkan hadduu baraali ka noqdo waxaan barnaamijkeena talada dhakhtarka ee telefishinka dalsan aynu ku eegi doonaa xanuunka Soomaalidu ay u taqaano gaaska ama boog calooleedka oo aynu ku eegi doono taariikhda fog iyo sooyaalka cudurkaas uu leeyahay ka hortagiisa dawooyinka calaamadaha lagu garto iyo guud ahaan talada dhakhtarka oo aan barnaamijkeena talada dhakhtarka toddobaadkan aynu ku eegi doono waxaa marti iigu ah mahadi ballaaran ka gaadhay Dr. Maxamed Abubakar Sheekh Nuur oo loo yaqaano Dr. Ayaha toddobaadkan ayuu barnaamijka marti inoogu yahay ugu horeyn dhakhtarka ayaan jecelahay in barnaamijkan ku soo dhaweeyo titore soo dhaw Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad baad u mahadsantihiin barnaamijkan maadaama aad ugu soo dhaweyseen barnaamijkan waa barnaamij aad bulshada ugu baahan yihiin in caafimaadka laga wacyigeliyo marka aad baan u soo dhaweynaa barnaamijkan baad mahadsantihiin waayahay dalsan TV sidoo kale way kaaga mahad celinaysaa waqtigaaga quruxda badan iyo ka qaybgalka barnaamijka iyo mowduuca aadka muhiimka u ah oo aynu diiradda ku saari doono toddobaadkan guud ahaan barnaamijkeena talada dhakhtarka waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa kaamirmaanadeena ustaad Yaxya iyo sidoo kale Cabdullaahi waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa farsamayaqaanka guud ee injineer Guure iyo Alfis barnaamijkeena ayaan si anba qaadan doonaa titore waxaan jecelahay ugu horeyn inaan mar labaad dalsan ku soo dhawo xarunta dhexe Muqdisho tan xigta bal waxaa faahfaahin guud sooyaalka taariikhda iyo si guud aad noogu guud martaa cudurkan boog calooleedka oo ay dad badan ay la ildaran yihiin waqtigii la helay iyo markii ugu horeysay calaamadihii lagu aqoonsaday oo magacan u gaarka ah Soomaaliduna ay gaaska ay ula baxday bismillahir rahmaanir rahiim horta cudurkan la yiraahdo boog calooleedka ama gaaska Soomaalida oo taqaano afka qalaad waxa lagu yiraahdaa peptic ulcer dadka hore ku dhici jiray laakiin si fiican looma aqoonin waxay soo bilaabatay baaristiisa 1905 ilaa 1906 soo bilaabatay baaristiisi dadka culumta caafimaadka ee wadamada horumaray iskuma aysan waafaqsanayn cudurkaas dad waxay dhici jireen macnaha waxa sababay acidka caloosha ku batay dadna waxay dhici jireen waxa sababay bacteria marka khilaaf weyn ayaa ka tagnaa alxamdulillah waxaa cudurkaasi ogaaday dad laba nin oo Australian ah mid kamid ah magaciisa waxa loo yaqaan Robben wuxuu ogaaday 1982 ayuu si fiican u ogaaday in cudurkan ay sababtay bacteria oo loo yaqaan H pylori kadib ayaa macnaha cudurkan la dhahay peptic ulcer waa cudur sababtay bacteria noocaas kadib ayaa daawadiisa sax loo soo saaray laakiin ka hor 1982 macnaha lama ogin cudurkan waa isku macnaha la isku muwaafaqsanayn marka sooyaalkiisa waa intaas ayahay Dr. Maxamed dalkaad wax ku baratay waxa takhasuska uu yahay culumta caafimaadka wax badanna waa darastay kiisas badanna runtii waa aragtay oo arimahan waxaan rabnaa cudurkan maadaama waqtigu soo bilowday la ogaaday dadka daawanaya barnaamijkeena talada dhakhtarka oo iyagu ku dhawdo su'aalo nagu soo weydiinaya barta Facebooka dalsan TV magaca markuu baxay kadib maxaa dadku ay la gudboon oo ay heleen isla markaana cudurradii kale la mid noqday oo la tacaalay cudurkan horta sidiisaba waa boog calooleed wuxuuna ku dhacaa caloosha iyo wuxuu ku dhacaa mandhiciraha qaybta ugu horeyso waa nabar ka soo baxayo caloosha ama nabarku wuxuu ka soo bixi karaa mandhicirta qaybta ugu horeyso Soomaalidina badanaa waxay isku qaladaa cudurka oo loo yaqaano laabjeex waxay isku qaladaa gaaska ama boog calooleedka laabjeex iyo gaas macnaha laba farqi ayaa u dhaxeeyo gaas macnaha waxa in nabar uu ka soo baxo caloosha ama mandhicirta
laabjeexna waxaa loo yaqaanaa in cuntadii ama acidkii ku jiray caloosha oo soo gaaro ilaa afka ama uu soo gaaro hunguriga ayaa waxaa loo yaqaanaa laabjeex. marka labadooda farqi weyn ayaa u dhexeeyo. taasi waa in la ogaadaa. peptic ulcer ama cudurkan gaaska sidiisaba waxaa loo yaqaanaa inuu nabar ka soo baxo caloosha ama inuu nabar ka soo baxo mandhiciraha qaybta ugu horeyso. marmar qaarna wuxuu ka soo bixi karaa hunguriga ayuu ka soo bixi karaa. marka waayahay xiriir ma ka dhexeeya marka gaaska iyo laabjeexo aad sheegtay soomaalida inta badan ay isku qasto yaa horeeyey oo ma gaaska keena laabjeexa ma laabjeexa gaas oo isku bedeli kara? hadba si waa dad oo waxaa jiro gaas qabo laabjeexna qabo. dadna waxaa jiro waxay qabaan gaas bes, dadna waxay qabaan laabjeex. ma fahantay? marka waxuu ahaa laakiin qofka hadduu laabjeex badanaa u qabo laabjeexii macnaha waxaa waaye acidkii oo soo gaarayo ama cuntada caloosha ku jirta ay soo gaarayso afka ama uu soo gaarayo hunguriga. marka kaasna wuxuu sameynaya inuu xoqo xubta ay leedahay caloosha then macnaha uu nabar meeshaas oo ka dhasha asi naftigiisa oo sababi karaa gaas oo sababi karaa. marka in loola tacaala wanaagsan. waayahay waxyaabaha gaaska lagu garan kara marka oo maanta diiradda si aada aynu u saarayno barnaamijkeena talada dhakhtarka ee Dalsan TV-na aynu ku eegayno. horta gaaska waxyaabaha qofku uu isku arki karo waxaa ka mid ah in qofku uu xanuun ka dareemo bogga. qofku wuxuu leeyahay boggaa laga hayaa, bogga ay xanuunayo. wuxuu ahaa dadka qaarna waxay dareemayaan matag, way soo matagayaan xanuun iyo matag markuu cudurka bilow yahay. dadka qaarna waxay dareemayaan cuntada markay cunaan ayay xanuun dareemayaan. dadna baahiday xanuun ku dareemayaan. marka waxay ku xiran tahay nabarka meesha uu ku yaalo. haddii nabarka uu mandhicirka ka soo baxo qofka cuntada hadduu cuno nafisa macnaha wuxuu isleeyahay baahiyaa ku hayso waxaa kugu soo kacay gaaska kugu soo kacee badar cun mandhiciruhu uu yaalaa macnaha badarkiyaa macnaha oo nafis ku dareemaa. laakiin haddii caloosha ugu yaalo badar hadduu cuno qofka xanuun uu dareemaa oo ismatajinaa macnaha masuushi ama meel tago wuxuu isleeyahay xanuun inoo dareemo oo ismatajinaa. markoo ismataji kadib wuxuu dareemaa nafis, markaasuu nafisa. marka labadaas nooc ayuu gaaska u qaybsamaa. Soomaali badanaana kaas ayaa haya. waayahay calaamadaha iswarkana waa intaas. waa calaamadaha qofka lagu arko. marka cudurkan gaaska ah qofka calaamadahaas hadduu isku arko kadib maxaa la gudboon? horta waxyaabaha sababo inuu ka fogaado ayaa la gudboon. okay for example cudurkan waxa ugu weyn ee sababa waa bacteria. bacteriadaasna waxay tegaysaa caloosha ama dhicirta, waxayna xoqaysaa ama ay dilaacinaysaa xuubabka uu leeyahay caloosha. markay dilaacayso meeshaas nabar ayaa ka dhalinaya. marka bacteriadaas waxaa keenay nadaafad darada qofka. marka waxaa la gudboon inuu nadaafadiisa ay wanaagsanaato. bacteriadaas hadda for example waxay ku gudubtaa oo kale haddii dadka ay isdhunkadaan oo kale u gudbi kartaa. waxay kaloo gudbi kartaa in hal galaas oo kale ama weelasha la isla isticmaalo iyadoo si fiican loo dhaqin. hadda cabitaanada banaanka lagu gado kale ama wuxuu ahaa qofka cabitaanka si fiican looma dhaqaayo. cabitaan qofka ku cabayo bacteriadii iyadoo meesha leh ayaa haddana qof kale imaanayo haddana cabitaanka uu ku cabaa dan meeshaasuu ku qaadaa macnaha. in kow nadaafadda laga fikiro. labo waxyaabaha kale keeni kara waxaa ka mid ah daawooyinka ay soomaalida aad u isticmaasho oo ay ka soo gataan farmashiyaasha ayagoon dhakhtar u qorin. waxay soo gadanayaan aspirin, waxay soo gadanayaan diclofenac. daawooyinka xanuun baabiyaasha ay soo gataan badankooda waxay sababaan inuu caloosha nabar ku sababo ama gaas ayay sababaan. qofku isticmaalaya xanuunkaa ka baaba'ayo laakiin gaasoo sababaya ma oga macnaha inay daawooyinkaasna ay ka fogaadaan. waxyaabaha ugu muhiimsan ee sabab waxaa waaye cuntadan aan dheelitirnayn. for example sambuusa la sameynaya leeyahay sambuusiga ma dheelitirna wuxuu sababi karaa gaas. okay ma dheelitirna cuntada macnaha waxa laga sameeyey macnaha haddaysan dheelitirnayn qof gaas ayaa ku dhici karo. sambuuska tusaale usoo qaaday. sambuuska haa sambuuska badanaa ma dheelitirna. dadka karina ay ku xirantaa adduunka macnaha cuntada markay dad oo waxaa kariyo macnaha oo ku takhasusay macnaha. laakiin Soomaalida qof walba waxay hadduu iska soo fahmo sambuuska ku duba dan qofku iska isticmaalaa. isha hadduu ka arko dan qofku wuxuu dareemaa macnaha laabjeexo dareemaa laabjeex qabka soo ahayo sambuuska tii basado ama cuntada aan dheelitirnayn hadduu basado dan macnaha asin wuxuu galaa qolada oo gaaska ayuu galaya ama bog caloleedka. waxa ugu daran ee sameeyaan Soomaalidana waxay tahay cuntada habeenkii inay iska buuxiyaan ee haddana seexanayaan.
habeenka haddaa cunto ku seexato caloosha buuxo haddaa seexato macnaha waxay ka dhigan tahay gaasna uu nugashahay macnaha inuu gaas kugu dhaco ama inuu laabjeex kugu dhaco labadooda aad baa ugu nugashahay marka kaas inaad macnaha ka digtoonaato ayaa kula gudboon haddaad cudurka gaaska qabtid. waayahay arrin oo marka la eego dad badan ay su-aal iska weydiinayaan oo ka dhawaajisay doctor maxamed waxay tahay arrintaas qofka markuu hunguri ama raashin uu cuno oo habeenkii uu la seexdo cashadii waxaa saameyn ku yeelanaysaa bal caafimaad ahaan ma tilmaami karnaa saddexda waqti ama waqtiyada ugu habboon ee raashinka la cuno qofkana caafimaad uu ku helay? horta cuntooyinka way kala daran yihiin. for example qofka hadduu khudaar oo kale hadduu cuno macnaha hadduu ku seexdo dhibaato fara badan ma lahan laakiin hadduu hilibka gaduudan waa kan ugu daran macnaha oo qofka gaas ku kiciyo. waxay sameynayaan hilib ay cunaan hilibka maxaa ka raadinaysa hadii loo borotiin la'aan ma noolaan karo macnaha borotiinka hilibka gaduudan bas lagama helo waxaa laga helaa hilibka cad sida malaayga iyo digaaga oo kale borotiin waa laga helaa kuwaasna gaas ma sababaan laakiin hilibka gaduudan haddaad gaas qabto fadlan hilib gaduudan ka fogow. okay laakiin hilib gaduudan oo cunaa saliid fara badan cunto saliid fara badan lahaa isticmaala adigana gaaska waa u nugushahay ama gaas haddaa qabtana xanuunka uu kaaga sii darayaa mana ka seexan kartid marka taasaa ugu daran. ka hor inta dawadiisa aan la helin cudurkan gaaska ama boog calooleedka ka hortag ma leeyahay? ka hortag wuu leeyahay waxaa loogu hortegi karaa cudurkan waxyaabaha sababaya dhan in laga fogaado sida nadaafadda in macnaha qofka nadaafadiisa ay wanaagsan tahay annadaafatu nisfu liimaan soomahan marka nadaafadaas hadday wanaagsan tahay haddii afkaaga si fiican aad u cadayso maalintii 3 jeer 2 jeer haddaa cadaysato bakteeriyada macnaha si macnaha calooshaada ay kusoo gasho way adkaanay macnaha laakiin haddaadan cadaysan ama for example waa cadaysatay meel oo waxaa joogtaa candhuufta lagu tufi karnoo kale candhuuftiida waa laqday macnaha waxaa isleedahay iska laq camal macnaha waa laqday dan macnaha adiga wax isku sii horseetayba in qashin calooshaada u galo dan adiga waxaa u nugushaa marka inuu kugu dhaco haddii aad cayilan tahay inaad weydkaada dhinto ama culeyskaaga miisaankaaga inaad dhinto waxaa kaloo ugu hortegi kartaa inaad isticmaasho cuntooyinka khudaarta ah aad ka fogaato cuntooyinka oo macnaha oo kugu kici karo waxaa kici karo kofeega oo kale soomaalida badanaa hadda ardayda oo waxaa u badan jaamacadaha ama ardayda dugsiyada sare markay imtixaanka akhrinayaan waxay isticmaalayaan ayagoo stress haayo balaas waxay ku darsanayaan kofee labadaasna aaday ugu nugushaa macnaha stresska naftirkiisa wuxuu keeni karaa gaas wuxuu keeni karaa wuxuu ku keeni karaa waxay tahay for example dadaa waxaa ku jira guri kale ah mar walbay murgayaan macnaha bisha macnaha for example wuxuu dhiibay lacagta wuxuu dhiibay bisha 10keeda si laga dawa qeylina bisha 10keeda u dhiibay 5 maalmood oo neefsana bisha 20keeda murug kala sii qabanaysa oo bisha soo socota murugtiida u sii socoto waxa laga yaabaa haddana kafee iyo waxaas ama sigaar iyo waxaas inuu ku darsado macnaha uu nugul yahay waxaasna inuu ka fogaado waxa kale ka fogaanaysa xalwado kale waxyaabaha saliidda ku badan tahay asina gaasku aad buu u keenaa sigaarka kale iyo tawaakada kale waxyaabaha oo badana ilaahay naga xarantimeeyay gaaska uu nugul yihiin hadda dadka ku nool qurbaha kale haga fogaadaan khamrigana wuxuu sababaa gaaska ayuu aad u sababaa marka waa in laga fogaado asigana. exercise-ka muxuu kaalin ka qaadan karaa qofkii inuu gym sameeyo ama exercise uu sameeyo markuu raashinka cuno kadib? exercise inuu sameeyo qofka raashin uu cunay raashinka hadduu la seexdo intuusan la seexan ka hor macnaha intuu la seexan ka hor hadduu macnahaas uu socdo macnaha jirkiisa si macnaha wuxuu u baahanaa cunto u baahanaa jirkiisa wuxuu u baahanaa nafaqo u baahanaa jirkiisa marka nafaqadina waxaa la rabaa in calooshii laga soo saaro haddii qofku uu socdo ama uu almideeyo macnaha ismarkiiba macnaha metabolismka ama dheefshiidka waa soconaa macnaha laakiin haddii adiga guri iska fadhiso dheefshiidka weeyaa u fiirso dadka Soomaalida badanaa ee fadhiyo macnaha appetite-kooda weeyaa qofka laakiin hadduu shaqeeyo maanta dhan in wax cuno u baahan yahay macnaha jirkiisa isticmaalo boqolkiiba imisaa la nool cudurkan dunida guud ahaan marka la eego Soomaaliya waa u iman doonaa iyo qaabka kiisaskan dhakhaatiirta iyo isbitaalada magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya ay ula tacaamulaan boqolkiiba qiyaas ahaan imisaa cudurkan la ildaran? boqolkiiba 10 aad u yaryahay marka la eego cudurrada kale. cudurrada marka la eego boqolkiiba 10 macnaha cudurrada ugu badan waxa sida dhiig karka sokorta iyo waxaas oo Soomaaliya laakiin gaaska kale boqolkiiba 10 waa laakiin laabjeex haddii meeshaan aan ku joogno 3 qof hal qof ka mid uu qabaa laabjeex
labadooda marka labadina hadda hadda inta fadhin midna wada gaas laabjeex buu qabay macnaha laabjeex macnaha waxa waaye Soomaali wuxuu ka yahay common oo ka yahay caan oo kale maxaa keenay isagan cuntooyinka aan dheelitirnayn iyo cuntooyinka oo macnaha oo for kala example, nooca ha maanta oo dhan hilib la cunaayo muxuu ahaa waxyaabaha hadda soo sheegay oo la isticmaalayo way keeni karaan waayahay Soomaaliya marka la eego kiisaskan boqolkiiba imisa lagu arkaa kiisaska hadda isbitaalka aan joogo horta aad bay ugu fara badan yihiin aad laakiin ayaga way ka sheegtaa macna ko imaanaya asab ku dhahayaba doctor he anigaasaan qabaa macnaha nabar caloosh ii yaalo ma ogi asigaas inoo qabo kadib markii la baaro waxa la ogaanaa inuu qabin ama inuu qabo kadib waa la ogaanaa macnaha ma fahanteen kadib markii baaritaan lagu sameeyo kadib waa la ogaan karaa laakiin Soomaalida badanaa muslim waxay isbitaalka timaadaa markay cudurku heerkiisa uu aad u sareeyo macnaha uu xaalad khatar uu ku jiro waqtiga waxba laga qaban waqti aan waxba laga qaban karin ama xaaladiis daranta oo imaana macnaha inta uu xaaladiis ay fududahay oo guriga isku joogo oo dhaho boga ay xanuunayo ciidaha ama qaraabada ay celinayso waxa la hayaa ala meesha waxaan lahaa farmashiya heblow tag waxa ka soo qaata kaniin heblaayo isticmaal waa degi kaniin wuxuu soo qaadanaa oo kaniin gaas lagu qaalaysiyo iska isticmaala nabarkan meesha waxa ugu wacan marka waxa ugu wacan wacyigelin la'aan hadda barnaamijkan ay dalsan TV soo saartay aad baa ugu mahadcelinayaa sababtoo ah wacyigelinta aad bay muhiim u tahay haddii bulshada loo wacyigeliyo macnaha ayagana waxay ku dhiiranayaan inay istaaka tagaan hadda adduunka qofku inuu isjakin gareeyo ama iskirin oo ismarsha biso istaak u tagaa asoo caafimaad qabo waa baxa wuxuu leeyahay doctor aniga waa caafimaad qabaa caafimaad waa dareemaya laakiin waxaa istaaka u maaday checking guud xaaladeeda halay checking dhiig halay diro iskaanka waxay laga shakiyaa halay sameeyo Soomaalida laakiin haddii xanuunsiin xitaa macnaha islaamtigayaan markii xaaladooda darto oo xaaladooda khatar ay gaarto islaamtigayaan ayaan horaa dhakhtar oo wuxuu ahaa nin weyn ah i weydiiyey wuxuu yidhi Soomaalida waa dadka ugu adkaysiga badan waa kartay sababaan dhahay doctor sababta wuxuu yidhi gaaska markuu daran yahay markii xaaladiisa ay caadi tahay imaanayaan waxay imaanayaan gaaska markuu dilaaco ama caloosh markuu ka soo baxo macnaha calooshii qoda markuu qodo kadib nabarkii markuu qodo meesha waxa ka imaanaya dhiig soo mataga qofkii markuu dhiig soo matago ama qofkii macnaha caloosh macnaha cuntada waxa loo tagay in caloosh ku jirto cuntadii waxa ku daadanaya macnaha meel loogu talagalay ku daadanaya qofka markii calooshiisa aad u xanuunto oo emergency markaas la keenaa markaas waxa leeyahay qofku xanuunsan yahay markii kana waxa leeyahay qofkan waxa ku dhacay kaasoo qabi jiray 3 maalin ka hor dhiigo ma tagay saasoo sameynaa dan waxa loo ordaa operation markaas qalin loo sameynaa xitaa qalinka xitaa ma ogolo waxay sameynayaan Soomaalida badankooda waa ka soo tashanayna leedahay waa ka soo tashanayna ee dhahayaan macnaha marka waxay gelinta aad ugu baahan Soomaalida waa ka soo tashanayna waqti qaadanay macnaha heblo loo tashanaa telefoon la waa maanta qofka xaaladiisa ka sitray qofkii oo xaaladiisa serious ay tahay ama kaas kadib ay qaraanayaan qaarkoodna way dhintaan oo cudurkan loo dhintaa sababtoo kiisas dhimasho haysan cases dhimasho way badan yihiin xitaa boqolkiiba hadda for example haddii timaado qof 10 qof oo gaas qabo hadday yimaadaan oo la ogaado 5 qof kamid ah caadi ahaan loo daaweeyo macnaha saaka yimaadaan waa iska daaweeyaa daawo caana loo qaataa 4 qof ama 5 qof kale kamid ahna emergency ay imaadaan 3 qof kamid ah qalin waa loo sameynaa 2 qof kamid ahna qalinku way diidaan oo way dhintaan marka saas waa xaaladda way sidoo kale wacyigelinta dadka bukaanada ama xanuunadaas qaba ka sokow dadka ka ganacsada dawooyinka oo farmashiga ugu wacan aan dhigi karnaa oo dawada ka iibiya isagoo warqad aan ka haysan dhakhtar qofkan way buuxaan dadkaas macnaha waxa waaye iyaga tala ahaan maxaa u soo jeeday horta adduunka farmashiyaasha daawo la iskama qaato daawo waxaa loo qaataa in dhakhtar uu soo qoro Soomaalida ayaga dhakhtar isku ah badankooda guriga joogaan ma xanuun dareemayaan kinneeso badanayaan waxa yar ma ka dareemaan ayaga dhakhtar isku ah macnaha waxay rabaan hadda daawooyinkan aspirin oo kale wuxuu sababa gaaska farmashiya tigayaan waxa ka soo qaadanayaan kiniini gaaska dadka farmashiistaha ama dadka oo Soomaaliyeed ee hadda taabanaya waxaan ku wacyigelinayaa ama ku dhiirinayaa in macnaha daawo aan dhakhtar kuu soo qorin inaadan qaadan ama daawada waa soo qaadatay dhakhtar la tag titoore daawadan ma qaadan karaa daawadan waa qaadan kartaa ha maya hadduu haa ku titoore saa u qaataa macnaha daawada xad ay leedahay daawada xadkeeda haddaa ka badan isticmaasho dhibaatooyinkeeda fara badanaya
daawada xadkeeda ka yar haddaa isticmaashana waxba kaa tari maysaba laakiin daawada xadka loogu talagalay dhakhtarka kuu sheegaya asigaana kuu qoraayo fadlan dhakhtar u tag weli daawadayaal barnaamijkeena talada dhakhtarka ee dalsan t v ayaynu ku guda jirnaa qeybaha dhexe ee barnaamijkana waynu dhex maquuranaynaa barnaamijka sida hordhacaba aad ku maqasheen ama aad ku daawateenba waxaa martii noogu ah Dr. Maxamed Abubakar oo ku caana Dr. Ayaha oo barnaamijkeena talada dhakhtarka dalsan t v toddobaadkan martii noogu ah waxaynu diiradda ku saareynaa cudurka boog caloleedka ama gaaska sida Soomaalidu ay u taqaano idinkuna su'aalaha aad qabtaan boggayaga Facebooka ee dalsan t v ayaad nagula soo wadaagi kartaan doctor barnaamijkeena sii wadanayna dawooyinka uu leeyahay oo kiniiniyaasha iyo cudurkan boog caloleedka ka sukow ma leeyahay dawooyin dhirta ka samaysan oo dadku aad arkayso inay aad u isticmaalaan si fiican daawooyinka dhirta ka samaysan marka la dhaho macnaha waxaa soo xasuusanaa waxaa leeyahay aabbahay mar wuxuu dhahay hilibka iska yaree qudaartana baso aaba maxaa ku wataan dhahay hilibka iska yaree qudaartana baso wuxuu tusaale u soo qaatay macnaha geelka iyo lo''da oo kale wuxuu dhahay geelka iyo lo''da iyo maroodiga yaa ka waaweyn ma waaweynoo haa maxay la weynaydeen u dhahay ma ugaarsi ma waxay cunaan hilib may cunaan may aab hilib ma cunaan maxay cunaan cawska iska cunaan macnaha cawskii cagaarkii iyo biyaha cunayeen saas ula weynaadeen marka dadka Soomaalida marka waxay u maleeyaan hilib haddii cunaan macnaha inay weynanayaan marka muhiimaddu waxay tahay haddii geela iyo lo''da iyo cagaarka saas ay ku noqdeen adina cagaarka maxaa kuu jeeda waxaa haysanaa ansalaato waxaan haysanaa karooto waxaan haysanaa bagel waxaan haysanaa koosto waxaan haysanaa tuun cuntooyinka aadka ugu fiican dadka gaaska qabo waxaa jira cuntooyin oo ku fogaanaya dadka haddaa qabta gaas iyo cuntooyin ku fiican haddaad qabta gaaska cuntooyinka oo aad ka fogaanayso waxaa ka mid ah kuu sheegay waa kofeega oo kale hilibka gaduudan oo kale waxyaabaha saliid ku badan oo kale waxaasoo dhan ka fogay cuntooyinka aan dheelitirnayn cuntooyin ku fiican maxaa ka mid ah oo hadda i weydiiyey waxaa ka mid ah tuunta aad bay kugu fiican tahay muxuu ahaa siiba ansalaatada karootada waa cuntooyin Soomaalida raqiiska muuska waxaa kale koostada aad u fiican koostada macnaha waxay dejisaa in macnaha ay caloosha acid fara badan uu ka soo baxo macnaha acidkaasna macnaha qofka xanuunka uu sii diraa mugta koostada aad ay muhiim u tahay tuunta waxay muhiim u tahay bakteeriyada haddaati oo macnaha sababaysay gaaska ayay macnaha boqolkiiba 90 dilaysaa macnaha bakteeriyada waxaa laga yaabaa inay afkaaga ku nooshahay haddaad tuun calaanjiso aad ujiso waxaa boqolkiiba 99.9 la ogyahay in bakteeriyadaas ay macnaha dhimanayso tuunta isticmaalsay waxaad isticmaashaa maadaama muslim aan nahay tunta hadda xilliyada oo maalinta isticmaasho kale masaajida geli kartaa ama dad la sheekaysan kartaa tunta way ka soo shiiraysaa marka waxaa muhiimsan xilliyada habeenkii oo kale inaad isticmaasho aseexanaysid ama cuntada aad ku dhex qarisa macnaha si toos inaad u cunno cuntada markaa cunayso kale badanka afka ka gashato tunta ka daggeey macnaha si macnaha hadhow shiirka walba uu yaraado marka tunta aad bay muhiim u tahay haddaad hilib protein rabtidna oo hilib cunaysidna inaad cunto hilibka cad siiba kalluunka iyo digaaga hilibka guduudna ka fogow kaasina wuxuu keeni karaa halan la seexan haddaa cuntana halan la seexan waa muhiimtaas waayahay waqtiyada ugu wacan qofka cunooyinka dheelitiran oo cuni karo 24 saac imisa ku filan oo nolol ahaan qofkaas ku filan qofka gaaska aan qabin dadka gaaska aan qabin dadka gaaska aan inta badan Soomaalida 3 xilli ku soo koobaan raashinka waqti cunista inkastoo horta taasi waxay ku xiran tahay dadka dhaqaalahooda ku xiran tahay waxayna ku xiran tahay qofka da'diisana ku xiran tahay for example qof da'diisu weyn tahay oo macna nin weyn ah appetite-kiisu yar yahay laakiin qof dhalinyaro ah appetite-kiisu badan yahay oo free mid kale macnaha dadka dhaqaalihiisana ku xiran tahay qofka macnaha waxa laga yaabaa dadka dhaqaalada inuu yar yahay oo wax isku celceliyaan ku jiraan oo kale ee cunaan waqti ka waqti way dhici kartaa laakiin muhiimaddu waxay tahay maalintii 2 jeer ayna qudaarta u badan tahay gaaska waa ka badbaadaysaa macnaha ma dhacayo maalintii waa 24 saac 24 saac 2 jeer oo qudaarta u badan tahay hadaa hesho macnaha ku filan tahay wax kale uma baahnid waa karta waayahay barnaamijka talada dhakhtarka ee dalsan t v ayaad weli daawanaysaan saaxiibayaal Dr. Maxamed Abubakar Sheekh Nuur Dr. Ayaha
cilmiga caafimaadka baratay waxaad ka shaqeysaa isbitaal kiisaskan oo kale waad aragteen oo marka la eego cudurkan bog caloleedka yaa xoog badan in lagu dabiibo dawooyinka dhirta ka samaysan oo inta badan dhakhaatiirtu ay sheegaan ama ay darsaan liin dhanaanta oo kale iyo dawooyinkan kiimikaalka oo in lagu isticmaalo cudurkan oo dabar jari kara horta daawooyinka dhirta caadiga ah waxay u fiican yihiin ka hortag iyo in inta xanuunka uu yar yahay in macnaha uu kasii darin daawooyinka dhirta aada ugu fiican tahay laakiin mar hadduu xanuunka uu khatartiisa uu leeyahay oo for example qofku hadduu heer uu dhiig sooma tago u gaaro ama saxaradiisa uu ku arko inay dhiig soo raacayso macnaha xaaladaas macnaha khudaarta hal xab kama tarto xaaladaas xaalad khatare waa xilligaasina istaag yimaadaan marka xilligaas oo kale waxay u baahan yihiin qalimo ama waxay u baahan yihiin daawooyinka hadda badanaa macnaha waxaa loo qoraa qofka hadduu gaaska lagu arko waxaa loo sameeyaa gaaska si loo xaqiijiyo haddii calaamada lagu arko u dhaho qofka aniga bugaa laga haya bugaa xanuunayo waa ma tagaa muxuu ahaa cuntada noocaas makaa cuno gaaska ugu sii kacaa lablabaad dareemaa qof markuu dhaho badanaa macnaha soomaalida waxaa loo qiyaasaa 9% inay qabaan markaas cudurka gaaska ah si loo hubiyo ayaa waxaa loo diraa tubo oo loo yaqaano endoscopy oo la gelinayo then waxaa la fiirinaa calooshii iyo mandhiciradii iyo waxaasa la fiirinaa si loo arko gaaskii masaxaba nabarka meesha ku yaalaa nabarka meesha ku yaalaa nabar hadduu meesha ku yaala marka waxaa loo qori karaa daawooyin yareynayo acidka oo caloosha yareynayo iyo daawooyin bogsiinayo nabarka intuusan qodmin mar hadduu qodmo qalin waa macnaha laakiin intuusan qodmin nabarka uu yaryahay daawooyin waxaa jirta antibiotics oo qaadan kara qofka antibiotics dhakhtarku soo qoraa daawooyinka wuxuu ahaa gaaska proton pump inhibitors daawooyin la yiraahdo ayaa la siiyaa daawooyinkooda intaas waayahay takhasus gooniya ma leeyahay oo dhakhaatiirtu ay darsaan cudurkan ma leeyahay oo jaamacadaha magaalada iyo lagu barto ama qof takhasuskaas kusoo takhasusay cudurkan dawooyinkiisa qaabka loola tacaalo hadda dhakhaatiirta kuma badna inkastoo dhakhaatiirta ay yihiin general dhakhaatiir oo ah oo gastro general cudurada guud baa macnaha badan ay u badan yihiin dadkaas ayagana way daaweeyaan laakiin siib waxaa loogu talagalay dhakhtar ku takhasusay digestive systemka ama muxuu ahaa dheefshiidka dhakhtar ku takhasusay ma badna macnaha aaday u yaryihiin laakiin intuu simple yahay dhakhtar walba oo cudurada guud ah wuu daaweyn karaa waayahay qeybaha dambe ee barnaamijkeenaan kusii siqeynaa soomaaliya marka la eego dad badana cudurkan uu haleelay ama cudurkan bog calooleedka ma yahay cudur la isku gudbin karo ama cudur dhalmada ku yimaado oo dhaxal ahaan soomaalidu ay tira gaaska dhaxal ahaan ku yimaado dhaxal ahaan waxaa ku imaan karo dhiig karka iyo sokorta iyo waxaas laakiin gaaska waa la isku gudbin karaa macnaha waxaa la isku gudbin karaa for example in macnaha weelasha la isticmaalo sida dad aan sheegay oo kale qof gaas qaba for example qof gaas qabo bacteria for example afkiisa soo raacday candhuuftiya waxay leedahay galaaski haddana adiga qaadatay cabitaankii haddana ku cabtay kaasi ku soo gudbi kartaa waxa ugu weyn oo ku gudbi karna waxaa waaye in saxarada uu ku gudbaa wuxuu saxarada u gudbaa waxay tahay macnaha qofka saxarada inuu toos u taga maaha macnaha si indirect ah for example qofka cijihiisa dheer saxarada urbeena iska dhaqo gaas oo qabiya muxuu ahaa asoo gaas qabo xijihii saxarada soo galgalaysa markay soo gasho kadib macnaha waxa laga yaabaa in qofka ilmihiisa uu badar ku siiyo ama wax afka u galsho ama si uu ku gudbina macnaha saxarada qofka inuu jirkiisa afkiisa gaarto way ku gudbaa bacteriadaas waxa kale uu muhiimsan oo gudbi kartaa waxay tahay for example cuntooyinka lagu gado banaanka oo suuqa lagu gado ama cuntooyinka maqaayadaha lagu gado waxay sameynayaan maqaayadaha badankooda sambuusi waxaas hal wiil ay kusoo wadaridayaan qofka marka sambuuskan oo taabanaa asigoo gacantiisa bacteriadii ay leedahay oo iska dhigaa macnaha sambuus wuxuu noqotay oo aan ficnayn burkaan oo soqona burkii oo ka heli weyha jaa bacteriada uu ku dhaafay wax kaloo soo qabtay labadii xabo ka anfaco cunaa dan ninkii matuura macnaha inta macnaha haraa waaye shaqa lagu dara maaha qofku wuxuu sameynaa meeshii ku celinaa qof kale imaanayo kii cunaa macnaha oo ninka hadaati bacteriada ku helayo cunaa dan saasoo gudubtaa waxyaabaha badan ay Soomaaliya u gudubtana waa wadadaas waayahay da'da ama da'ada dadka u nugul cudurkan uu ku haleelo cudurkan badanaa wuxuu ku badan dadka da'da ah siibo 40 sano ka badan ayuu aad u badan yahay hadda waxaa la ogaaday Soomaalida
waxay kusii batay dadka 30 sano ilaa iyo wixii ka badan gaaska aad uu nugul yahay maxaa keeni karo waxa uu weyn u keen macnaha waa stresska dadka badankood stress ku furan macnaha qofka hadduu stress ku furan yahay uuna isticmaalo kafeega ama sigaarka oo isticmaalo dadka badanaa macnaha waxay bulwaday leeyihiin bulwadaas haddii isticmaalaan gaaska aad uu nugulaanaa oo qofka uu haleelay si fiican waqti intee leeg ayuu qaadan karaa cudurkan dabargoontiisa marka dabargo ma leeyahay horta ma la sifeyn karaa guud ahaan Soomaaliya waxay guud ahaan Soomaaliya ma u maleynaa kulli qofka inuu cudurkan uu ka baxo waxay ku xiran tahay xaaladiisa heerka ay marayso nabarka meesha ku yaalo heerkiisa waa heer intuu la eg yahay macnaha haddii nabarku aad u weyn yahay qalin oo u baahanaa qalinka lagu xalinaa laakiin nabarka hadduu yar yahay daaweyn oo qaadanaa daawooyinka haddii laakiin waxaa loo dagalaya bil Soomaalida marka maxay samaysaa daawadii markay qofku uu qaato 10 maalin markuu qaato cuntadii si fiican cunaa bog xanuun ma arkin alxamdulillah daawada wali loo dan haddana calaamadahan ku soo cusboonaanahay daawada ma dhameysnaa marka Soomaalida aad waxa ugu talnaa daawada dhakhtarku ku soo qoray fadlan inta maalin qaado lagu dhaxay qaado haddii loo daawadan bil qaado bishaas dhameyso marka daawada dhameysat kadib dhakhtarku kula laabo maana daawadii adoon dhameynin waa goyna dan guriga iska jooga macnaha ma soo tikirayso way ugu dambeyn marka taladaada ku aadan cudurkan in laga fiijignaado dadka dawooyinka bixiyay iyagoo cudurkan baaritaan amarin qofka dawada markuu qaato kadib cudurkan inuu iska daba jaro guud ahaan taladaad u soo jeedinayso ka dhaktar aayaha ahaan ma sha Allah talada ugu muhiimsan aan bulshada Soomaaliyeed kula talinayaa waxay tahay in cudurkan waxyaabaha sababaya dhan aad ka fogaato ama iska yareyso waxyaabaha aad u sabab maxaa kamid ah in nadaafadaada horta ay xunta haddii nadaafadaada ay macnaha eber ka tahay macnaha cudurkan aad u nugushaa hadda afkaaga cadeynin cudurkan uu nugushaa haddii sigaarka aad isticmaasho cudurkan uu nugushaa tuwaakada aad isticmaasho kuwaas oo dhan nadaafad macnaha waxa waaye qofka cudurku markaas uu nugul yahay kow horta lambar 80% waxaa noo ah nadaafada haday fiican tahay cudurkan waa ka badbaaday labo inaad ka fogaato hilibka gaduudan oo hadda soo sheegay waxay kafeega inaad ka fogaato waxyaabaha saliidda fara badan inaad ka fogaato waxaas oo dhan hadaa ka fogaato cudurkan waa ka badbaadaysaa haddii qudaartii aan kuu sheegay sida tuunto kale karootada koostada bagalka wax alaala wixii ilaahay dhirta aan u soo baxshay oo qudaar ah hadaa isticmaasho cudurkan waa ka badbaadaysaa laakiin markaa isticmaalayso waa inay ayaga nadaafadooda fiican tahay oo si fiican loo dhaqo biyo kule lagu dhaqo aad markaas qudaartaas isticmaasho marka 100% insha Allah taala waan ka badbaadaysaa hagaag guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka talada dhakhtarka oo toos idinkaga imanayay xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho toddobaadkan barnaamijka toddobaadkan waxaynu diiradaynu ku saarnay cudurka buug-calooleedka ama gaaska sida Soomaalidu ay u taqaano waxaana marti ugu ahaa Dr. Maxamed Abubakar oo loo yaqaano Dr. Aayaha ahna aqoon-yahan bartay cilmiga culuumta caafimaadka tan iyo kulan dambe waa Cabdullaahi Xuseen Canshuur oo idin leh daawashadiina ayaad ku mahadsantihiin nabadgelyo